السلام عليكم ماي أصحابتي قالي بدن وولاشين السمية ومر لباد نيسو لابطي وكالالوني أصحابتي قالي بدن سو دوادا اللي قرالي هذا إن بدن أيانيق مقناع واير مشغولي ماي أصحابتي قالي بدن وحان في الله إنا عافمات قبتين أنا عافمات كيغا أوكي واي الحمد لله إنك بدن إلها كسوغايا شكر رب العالمين إن كرواني رجينا إنا عافمات قبتين إنت حنونك الله كدل قادم ماي أصحابتي قالي بدن inta caafimaad qabta allah u siyaadiyo maanta maxaynii haysaa walaashiin sumayo waa ogtihiin waxaan ka wada hadlayna waxay ahayd dhirteena inaan isku daaweyno alxamdulilaah ilaahay waa noo fududeeyey dad badan ayaa isoo waceen maayo asxaabteyda qaaliga badan oo i weydiinayaan ilmo yaraan leenahay ilmaha yar ayaa ameenba ama gooryaan bahalka la yiraa nafta noo keena sumayo maxaa nugu caawin kartaa xagga dumarkana maanta way qusaysaa xagga ilmahana way qusaysaa maanta aad iyo aad ayaa ugu faa'iideysiin walaashiin sumaya maanta hadhihina maanta mamalabay noo keentay meeshan waxaan iigu haya waxay tahay saliidda la dhahaaya ma aha saliid macsar ma aha saliid caddeey waa saliid qumbo saliidda qumbaha waa taqaaniin si wanaagsan xagga timaha aaday ugu fiican tahay kulli xagga timaha ayaa u taqaaniina u malaynayaa asxaabteeda qaaliga badan waxyaalo kale u fiicantaa jirto alxamdulilaah waa geed ilaahayna siiyey shukr rabbilcaalamiin waa saliidda qumbaha oo puwa ah oo aadka nadiif ku ah wax kale aana ku jirin saliidda qumbaha naftigeeda saafi ah waaye maay asxaabteeda qaaliga badan saliidda qumbaha maanta maxay nagu saacideynaysaa ayadoo gisac ah jirto ayadoo caagaa jirto waa kanaa CBC ayaa la dhahaa maay asxaabteeda qaaliga badan meeshan waxaa ku haysanaa toon 2 xaboo toon ah inta waxaan ku haysanaa saliidda qumbaha oon soo dhalaalin oo xoogaa yara qandac ah maay asxaabteeda qaaliga badan sheekada maanta waxay qusaysaa waa dumarka iyo caruurta yaryar sida horta caruurta ayaan aad ugu hadlayaa fast kabacdi ayaan dumarkeena usoo laabanaynaa maay asxaabteeda qaaliga badan walaashay ama walaalkey ma leedahay cunug yar oo ameenba qabo ameenbaha waa ogtin wuu dhib badan yahay ilmaha labalabo ayuu ku ridaa cunto laan ayuu ku ridaa sometimes cunuga gadaal ama xagga gadaal maxaa la dhihi jiray cuncun ayuu ka dareemaa ameenbaha aad ayuu dadku u dhibaa sidaba ilmaha yar ayuu aadku u dhibaa hataa madax wareer uu leeyahay labalabo badan uu leeyahay sida qof walac oo kale cunuga ula laboona cunto ma cuni kara cunuga wareer madax wareer uu leeyahay alxamdulilaah maanta waxaan isku daaweynaynaa waxay tahay walaashiina niigu faa'iideynaysaa saliidda qumbaha waxaa u taqaanin ininka marka hore waxay ahayd saliidda in madax loo isticmaalo timahana qumbaha aad ugu fiican tahay haddaba maanta walaashiina sumaya ka faa'iideysta haddii aad ka heshaan samskaraabta leegta sheerta waa xaggiina dadka nagu cusub asxaabteena qaaliga badan waxaan leenahay noo soo dhawaada sifa ah walaashaa sumaya uu la socotid samskaraabta iyo leegta iyo sheerta gambaleelka furo sifa ah uga faa'iido walaashaa sumeeyo dadka hore noola sii joogo waxaan leenahay ilaahay hanii barakeeyo usii shaalgareeya asxaabtiina qaaliga badan hadde hoosha aan dhexgalna walaashiina sumaya maanta maxay nii wadaa waa saliidda qumbaha ma leedahay walaashay ama walaalkay cunugaada ma leeyahay xagga gadaal inuu cuncun dareemo madax wareer labalabo ameenbada aad u dhibto daktar aad geysid ameenbadaas laga soo helo daawo gooryaan la siiyo waxba aan ka tareenin bil ka bacdi ama 2 wiil ka bacdi kusoo laabto haddii aad leedahay dhibaatadaas cunugaada uu leeyahay ama adiga naftiga hataa aad leedahay ama cunugaada uu leeyahay haddaba ka faa'iideysa cashirkan aad ayuu ku anfacaya walaashay ama walaalkay caruurteena waa ogtahay haddii cunuga uu xanuunsan yahay ameenba ama haaya ama cunuga abateed la-aan ku dhacdo xagga ameenbada darteed because ameenbaha abateed la-aan ayuu cunuga ku ridaa ama madax wareer ayuu cunuga ku ridaa labalaba zaa'id ah matag zaa'id ah shuban badan marka daawadan isku daaweyn lahayn oo ilaahayna siiye qumbaha waa dhirta ilaahay ka mid tahay soo bixiyey dhulka ka soo bixiyey waa qumbo alxamdulilaah maasha allah walaashay qaaliya dhagahaada isii ama walaalkay labadaada dhagood isii maxaa la dhihi jiri saliidda qumbaha aaday u fiican tahay xagga ameenbada saa'id ugu fiican tahay cunuga hadduu gadaal cuncun ka dareemayo zaa'id ah xagga xaartadan sheegayaa haddii cuncun zaa'id uu ka dareemayo saliidda qumbaha subaxda alisay cunuga asoo afkiisa qabo horta hal qaado oo saliid qumbo oo nadiif ah qumbo ma tahay ma aha saliidda qumbaha caadiga ah oo nadiifka ah waxba aana ku jirin waxaa siinaysaa halkan qaado oo xoogaa yara qandac ah iyo xabad toon
xabaddaa toon laakiin horta kow fasta waxaa siinaysaa hal qaado saliid ah markuu 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo joogo haddana xabad toon ayaa siinaysaa waa ku qasbaysaa mast waay ama waa u tumaysaa ama asigaa calalsan ani hadda ilmahayga waa calalsiiyaa sida ilmaha saa adigu bartida markuu calalsado aad u fiican tahay saasa ugu fiiqay hal xaboo toon ah waa calalsiinaysaa haaf biyo oo saliga nebiga ah ku aqrisay aa siinaysaa wuu ku cabaayaa cabaaruu joogaa cunto dhaqso ma cunaayo ilaa 1 saac oo kale ama ilaa adiga 40 daqiiqo camal intaas cunto ma cunaayo tan kale aa samaynaysid waxay tahay markaa intaas afka ka siisid haddana saliidda ayaa gacantaada oo gloofis leh gacantaada gacmaha waa ogtiin bakteriya leedahay gacantaada cunuga asoo nadiif ah oo gadaashiisa nadiif ah gacantaada oo maxaa la dhihi jiray oo gloofis wadatid oo nadiif ah ayaa saliidda gacantaada marinaysaa markaa marisid gadaashiisa ayaa 3 mar oo kale marinaysaa meesha uu ka xaaraayo cunuga ma fahanti markaa marisid haddana bahashan oo nadiif ah soo qabanaysaa ma tumaysid ayadoo saan ah aad dabada saan xoogaa yar u xoqaysaa sifo uu sometimes meesha xaartada cunuga uu ka xaaraayo waxaa jiro ama ambeembada bahala yaryaro cadcad aa jira inaa aragta in kale ma aqaano cunuga marka dabada cuncunaysa oo kale waalidka wanaagsan dabadiisa cunuga wuu fiiriyaa cuncunkaas oo kale markuu wuu arkaa wuu fiiriyaa waxa koosgareeyo sometimes waxa koosgareeyo waxaa waye ambeembaha ceeb ma aha waa wax xaqa isku sheegin waa xagga caafimaad anaka dan noo ah adiga dan ku ah aniga dan yaha danta guud ah markaa ka dareentay wax cadcad cunuga adoo nadiifisay oo biy yaroo qandac aa dabadiisa ku dhaqday ama gadaashiisa aa ku dhaqday saliiddaas waxaa samaynaysaa waa marinaysaa markaa marisid ayadoo saliidda aadan marinin kan ma ku xoqaysid fast meesha sida u jilacdo saliiddaasaa marinaysaa xoqitaanka kan kaligiis haddaa ku xoqdid xanuunay u keenaysaa ama waxay u keenaysaa diiri dilaac oo kale ama cunuga waa maqaar fiiqmaayo oo kale xanuunay u keenay marka hadhuutay uu saxaroonaa oo kale cunuga dhibay u keeni kartaa marka waxaa samaynay fast marka cunuga biyo kuleel oo qandac oo cusbo leh aa ku dhaqdid oo nadiif ah marka waxaas cuncunka dabada cunuga aa ka dareentid waaya ama wax cadcad aa ka dareentid saliiddaas aa u marinay si fiican marka meesha xaartada kule cunuga saas aa ugu marisid kabacdi baashaana qabanay toonta ah xoogaa yar wax ku rugaay oo kale mafahant meesha saxarada ka imaanaysa kulli waa ku yar rugay wax xoog ah maaha wax yar cunuga dhibaatii u keena wax yar leh saas ugu rugay sifa eena jirkiisa eena u dilaacin wax yar saasa ugu rugay markaa ku rugdid xoogaa yar balbaluu dareemaya waxba ha u arkin gudaha ma gelinaysid maya asxaabteeda qaaliga badan walaashay dhagaha fur gudaha ma gelinaysid toonta cunuga dabadiisa hore meesha xaartada ah saas ugu rugrugay afka hore leh bis khalaas adoo saliiddaas weliba aa u marisay orid qaadana saliid waa ka siisay orid toonna waa ka siisay baashan aad ani kula hadlaa ilmahayga waan ku fiiriyey gooryaankaas ama meembadaas cunuga ani iga qabo alxamdulilah waan ku tijaabiyey aaday wallahi u anfacday aniga waxaan soo tijaabiyey la asxaabteyda qaaliga badan niisoo sheegaya marka maay asxaabteyda qaaliga badan ka faa'iidaysa waan hadduu cunugaada labalaba ah ku dareentid madax wareer ah ka dareentid cuntada uu cuni karin uu lalaboonaayo uu matagaayo shuban uu sii deynayo ama shuban maxaa la dhihi jiray cadcad ku jiro ama dabadiisa sometimes cuncun uu dareemaayo uu leeyahay hooyo dabada ay cuncunaysa oo kale ilmaha badana way qabaan ama maxaa la dhihi jiray markaa dabada aa ka fiirisid wax cadcad dabada korkiisa ka saara meesha xaartada ah ameenba waayo waxaas marka qaada subaxda alseed cunuga afkiisa qaba intaada dugsi u dirin ama guriga hadduu kuu jeedo qaada oo saliidaas qumbaha ah hal qaada ah iyadoo kuleel ah oo yar qandac ah kuleel afka cunugka gubaysana ma hal qaadaan nyalam ku siinay haddii yar yahayna qaadada tan ka yaran nyalam ku siinaysaa kabacdi bahashaana hal xabaa siinaysaa sidan kuugu sheegay biyaa ku siinaysaa saliga nebigaa ku aqrinaysaa sala allahu alay wasalam tawakal cala allah wakafaa billaahi wakiila waxaa ilaahay talada saartid unbaa lagu caafimaadaa meembadaas kuguma soo laabanaya insha allah biidin ilaahi baari isku day wanaagsan maya asxaabteyda qaaliga badan ha ka seexani ambeembaha cunug wuxuu ka sameeyaa madax wareer uu ku sameeyaa maxaa dhihi jira qandho badan uu leeyahay labalaba badan uu leeyahay cunugiyo dabada xagga gadaal cuncunayso wuxuu kaloo leeyahay shuban badan uu leeyahay cunuga cunto ma cuni kara cunuga asiga dhammaan maanta kulli maxnaha hadduu socdo hataa cunuga wuu daalaya waa ameembada calool xanuun uu leeyahay cunuga asaga naftigiisa hilibkiisa dhammaan hadduu cunuga hilib lahaa hilibkiisa kulli wuu la tagayaa hadduu hilib lahayn waaba kasii darayaa tabartu cunuga ka qaadaya ameembada waa taqaaniin gooryaanka waa gooni ameembadana waa gooni ameembada ugu xun gooryaankaa fiicanba labadooda ameembada wax ka xun ma laha marka maaya asxaabteyda qaali badan ku dadaal wanaagsan saliiddaas aa soo gadanaysidna ha ahaado saliid qumba nadiif ah weliba tan fadhiisanaysa ma aha tan oo sii socsocoto ma aha tan adi aa kuleysanaysa waay
aan usoo laabana xagga dumarka walaashii qaaliyey horta xagga caafimaadka inaan macnaha ka wada qaybsanno ama ka wada faa'iidaysano aad ayay u fiican tahay aniga walaashiina sumeya ahay wixii caafimaad ku jiro walaashii qaaliyey sheekadan maanta dumar ragga ma qusayso waa un dumarka only dumarka waaye raggana waa nii soo wadaa haddii ilaahay raalli ka noqdo wixii faa'iida waa ka wada faa'iidaysanaynaa wixii kheyr ku jiro insha allah ininkana kumidiga iigu soo sheega wixii aad ka faa'idaan wax kale oo aa wadiin hore iigu soo sheega kumidiga xaggiisa haddii aad ka faa'idaan iisoo sheega samskaraabta leegta waxaas dhamaan dhinaciina waaye dhiirigelinta walaashiina sameeya dhinaciina waaye aniga ininkaa garabii ah ininkaa soomaaliya ininkaa walaalihii ah waa ku mahadsantihiin dhegeysiga wanaagsan aad dhegeysateen markaan usoo laabana xagga dumarkeena walaashii qaaliyey ma leedahay dhabar xanuun ma leedahay jilba xanuun labalaba badan markaa jaranjarta aa fuuleysa adigoo aad daaleysid ama askiga shakisid intaa uur qaadida uurka ama dhicis oo kale aad dareentid ama adi iyo walaalkee ama intaa markaa isku tegeysin oo kale xanuun yar aad dareentid haddii ay tahay jawaabtaadu haa ka faa'iideysa wacan xagga saliidda qumbaha le waaya toonta kuma jirto qumbaha waa waxaas kule aan ka sheekeyna dumarku way fahansan yihiin waxyaalo badan oo waxaa jira dumarka laga gubo xagga hoosta egfashanka oo kala waxyaalo badan oo bogboog yar oo waxaa jirta ama kurtumo yara oo dumarka iyo meeshooda qaaliga badan ay kasoo baxaanaa jirta aniga ayaga waa is ognahay bahalahaas oo kurtumaha ah ama bogboogta aa u maleysid xanuuno badan ay u keenaan hataa qofka dumarka uurka markay qaado egfashan waay meesha iskugu imaaday markay uur qaado wax eeb ma aha gabadhi uurka waa kasoo daadanaa ama iidi museegeeda markay si xalaal isku arkayaan oo kale xanuunay dareemeysaa ama maxaa la dhihi jiray jaranjarta markay fuulayso kul way daale jilbiya xanuuna dhabarkii xanuuna way lalaboone abiteed malaha gabadhi midabkeeda qurux badnaa ama caddaa ama maariin ahaa ayadoo qurux badneed midabkeeda dhammaanayo egfashanka oo layska gubo xagga dumarka ayaan ka sheekeynaya dumarka waa isfahansannahay egfashanka layska gubo ma tahay qof ka cabsanaya gubniinka xagga hoos hadday tahay jawaabtaadu haa walaashay qaaliyey saliidan ayaa isticmaalaysaa saliidan qumbaha ayaa isticmaalaysaa ayadoo weliba qandac ah kaligeed markaa bii kuleel oo cusbo leh aa isticmaashid oo ku dhaqatid oo nadiif meeshaada aa ka dhigatid oo dhiitool aa ku dhaqatid weliba dhiitoolka markaa isticmaashid oo saliidaas maxaa la dhihi jiray biyaha kuleelka qandac cusbada leh aa ku dhaqatid meeshaada nadiif ku ah intaada adii museegaada aada is arkin maxaa la dhihi jira ama asiga suuqa uu jiro oo kala ama maxaa la dhihi jira ama safar uu kaa jiro oo kala bahashan ayaa marsanaysaa xagga meesha kurtumaha kasoo baxay afkiisa hore dhammaana saas gacantaadoo nadiif ah usoo qaade waa wada marinaysaa afkiisa meesha kurtumaha is leedahay oo gubniinka hataa ka cabsanaysa dumarka qaarkood waa la gubaa bahalkaas waa layska gubaa uurka hataa laguma yeesho badanaa egfashan uu leeyahay gabadha midabkeeda wuu badelaa way yaqaanaan dumarka ragga haddaana ada aqoon u lahayn dumarka ayaa yaqaana marka aad ayuu ku caawinay saliidan dad badan ayaa isticmaalay oo hadda aan u sheegay marka saliidan gabdho badan oo isticmaaleen hataa way ii sheegeen waxay dhahay sumey saliida aad u fiican tahay saliida zaytuun maxaan dhihi jiray zaytuun yaan dhihin qumbaha cafwan afka iga dafay saliida qumbaha oo yara qandac ah ayaa marsanaysaa markaa marsatid xoogaa waxaa dareemaysaa hurhur yaroo meel dheer ah waxaa sameynaysaa maaya asxaabteeda qaaliga badan walaashay qaali 7 beri aa isku fiirine haddii aa iskiga sii darantin caafimaadkaada okay yahay ama waxay kule ay kaa dhammaadeen ogow farta gudaha ayaa la gelinay si fiicana u marine meelaha dhammaan kurtumaha banaanka iska yaalaan way ogyihiin gabdhaha ama boogaha yaryariiska banaanka yaalaan bahalkeena qaaliga badan afkiisa hore ayuu ku yaalaa guduhu xoogaa mar qaarkood galaa mar qaarkood afku ku yaalaa marka tartiib bismillah intaa dhahda saliga nabiga ku akhrisid kulli waa wada marinaysaa kurtumahaas kulli waa wada marine waxaa sameynaysaa wiik haddii wiik wax iskaga dareentid alxamdulilaah haddii kalena 2 wiik oo kala wadaysaa maasha allah ilaahay caafimaad han igu siiyo maxaa la dhihi jiray dadaal wanaagsan maaya asxaabteyda qaaliga badan ha lagu dadaalo saliida aaday u fiican tahay saliid zaytuunka timaha way u fiican tahay ilmaha hataa kareemahan oo looma marinayo looshimahan oo ilmaha alajiga gelinayaan wallaahi saliidaasa ilmihayga anu u marsadaa maasha allah haddaa aragtid wejigooda haddaa aragtid ama korkooda aragtid sibiq waay saliida zaytuunka aaday u fiican tahay ilmaha waa loo marsadaa gabdhaha hadda sidaan kuu sheegaya xagga hoose u isticmaali karaan ilmaha meembada qaba aadaa loogu isticmaalaa marka kusoo dadaala insha allah maxaa la dhihi jiray isku fiiriya
aad ayaa nii anficaysaa insha allah biidin ilaahi baari wixii aqbaaraha iisoo sheegaysin saliidda zaytuunka la dhahaayan waa CBC daas waay ayadoo gisacaa jira ayadoo caagaasaa jiro insha allah maay asxaabteeda qaaliga badan isku soo noqod wanaagsan dadka oo maxaa la jir hore liisii joog walaalihii qaaliga badan waxaan leeyahay leegta sii sheelgareeya si asxaabtiina qaaliga badan ay uga faa'iidaystaan asxaabta hadda nagu soo kordhoonti waxaan leenahay samskaraabta leegta sheerta dhinaciina waay maay asxaabteeda qaaliga badan walaashiin ayaan ahay inaa garab isiisiina ayaan rabaa isku soo noqdo wanaagsan anna wixii kheyr ku jiro insha allah waan iisoo sheegayaa wixii caafimaad ku jiro maasha allah maay asxaabteeda qaaliga badan inta xanuunsan ilaahay xanuunka haka dulqaada inta caafimaad qabta allah u ziyaadiyo oo ani aan ka kooway alxamdulilah shukur rabbilcaalamiin ka badan ilaahay ayaan ka rajeynaynaa biidin ilaahi baari assalaamu calaykum maay asxaabteeda qaaliga